bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan daawadayaal qodobada wararka TV saakaydin haya waxaa ka mid ah booliiska Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay qarax baabuur oo ka dhacay Muqdisho ra'iisul wasaare Khayre oo wasiirkiisa waxbarashada ku amray inuu raali gelin ka bixiyo hadal uu ka sheegay imtixaanka Garowe al-shabaab iyo ganacsatada suuqa Bakaaraha oo gaaray heshiis ku saabsan suuqa Bakaaraha aqalka sare oo ka dooday arrimaha doorashooyinka wararka dibadda wararka TV saakaydin hayna waxaa ka mid ah madaxweyne Trump oo shuruud ku xiray in haweenka Mareykanka ilmaha iska soo ridaan daawadayaal ku soo dhawaada warkaasi oo fidsan haddii aad ka mid tahay daawadayaasheena cusub ee barta YouTube-ka fadlan rukumo barteena si wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka aad ula socotid adigoo subscribe dhahaya taliska booliiska Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay qarax baabuur oo ka dhacay degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir kaasoo laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka Banaadir taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Sakiye Xuseen oo la hadashay warbaahinta ayaa waxa ay sheegtay in qarax laga soo buuxiyay gaari nooha ah isla markaana la dhigay dabarka dambe ee iskaashatada gaadiidka ee degmada Xamarweyne halkaas oo gaarigu ku qarxay taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska ayaa sheegay inaan wax khasaaraha geysan qaraxaasi isla markaana ciidamada ammaanka howlgalo ay sameeyeen lagu soo qabtay laba ruux oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen in gaarigaasi qarxay ay goobta dhigeen ciidamada booliiska ayaa maalmihii u dambeeyay waday howlgalo lagu xaqiijinaya ammaanka iyadoo la kordhiyay baraha kontarool ee ku yaala magaalada Muqdisho si looga hortago gaadiidka waxyaabaha qarxa ay ka buuxaan ee lagu qarxiyo wadooyinka magaalada Muqdisho ee xarumaha dawladda Soomaaliya ururka al-shabaab iyo ganacsatada suuqa Bakaaraha ayaa gaaray heshiis cusub oo ku saabsan suuqa Bakaaraha sida ay xogta ku heshay shabakada wararka TV heshiis cusub ayaa waxa uu dhex maray ganacsatada suuqa Bakaaraha iyo hogaamiyaal ka tirsan xarakada shabaab ee dagaalka kula jira dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM ee ku sugan Soomaaliya guddi ka socda ganacsatada suuqa Bakaaraha ayaa kulan culus la qaatay xubno sarsare oo ka tirsan ururka al-shabaab kadib markii ganacsatada ay gudbiyeen cabasho ku aadan in hoos u dhac ku yimid ganacsiga suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho ganacsatada ayaa al-shabaab ku eedeeyay inay sabab u yihiin hoos u dhaca ku yimid ganacsiga suuqa Bakaaraha kadib markii ay badiyeen ururka al-shabaab dilalka ay ka geystaan Muqdisho taasoo keentay in dadkii lacagaha lahaa ee dibadaha ka imaanayay iyo kuwa hay'adaha u shaqeeyo ay iska joojiyeen inay wax ka soo iibsadaan suuqa Bakaaraha ganacsatada ayaa al-shabaab hor dhigay laba qodob oo muhiim u ah ganacsiga suuqa Bakaaraha labada qodob ayaa waxa ay kala ahaayeen kow in ganacsatada ay iska joojiyaan ganacsiyada ay ku leeyihiin suuqa Bakaaraha isla markaana ay u wareegsadaan suuqyada kale ee magaalada Muqdisho si ay u helaan dad wax ka iibsada iyo in ay joojiyaan dilalka ay ka fuliyaan suuqa Bakaaraha oo loo geysto dadka aan hubaysnayn ganacsatada ayaa ku dooday in al-shabaab ay siiyaan canshuur sida daraadeedna aysan macquul ahayn in ay canshuur bixiyaan xilli ganacsigooda uu hoos u dhacay dood dheer iyo iska qabsi kadib al-shabaab iyo ganacsatada suuqa Bakaaraha ayaa gaaray heshiis cusub oo ku saabsan howlgallada xarakada al-shabaab ay ka sameeyaan suuqa Bakaaraha ganacsatada iyo al-shabaab ayaa ku heshiiyay in ururka al-shabaab dagaalyahanadooda ay joojiyaan dilalka ay ka fuliyaan suuqa Bakaaraha si dadka ka cabsanaya inay al-shabaab ku dilaan suuqa Bakaaraha ay ugu suurto gasho inay u soo ganacsi tagaan suuqa Bakaaraha sidoo kale ganacsatadii ururka al-shabaab ayaa ku heshiiyay inaan suuqa Bakaaraha lagu dhex dili karin wax aan ka ahayn askari ka tirsan dawladda Soomaaliya isla markaana wata hubkiisa waxaana mamnuuc ah xitaa in gudaha suuqa Bakaaraha lagu dhex dilo askari aan hubaysnayn al-shabaab ayaa ballan qaaday dhankooda inaysan mar kale suuqa Bakaaraha ku dili doonin dadka rayidka ah ee la shaqeeya dawladda iyo hay'adaha ajnabiga ee ka howlgala dalka heshiiskan ayaa noqonaya midkii ugu muhiimsanaa ee dhaxmara ganacsatada suuqa Bakaaraha iyo ururka al-shabaab oo dhiig fara badan ku daadin jiray gudaha suuqa Bakaaraha qaar ka tirsan ganacsatada heshiiskaasi la gashay al-shabaab ayaa shabakada wararka TV u sheegay inay rajo fiican ka qabaan fulinta heshiiskan ay la galeen kooxda al-shabaab oo looga bartay inaysan qasaarin jaanisada ay ku helaan dadka ay doonayaan inay dilaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku amray wasiirka wasaaradda waxbarashada inuu raali gelin ka bixiyo hadal uu ka sheegay imtixaan ay u fadhiisteen ardayda Puntland wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo soo saaray war-saxaafadeed ayaa sheegay inuu ka xun yahay hadal uu ka jeediyay magaalada Jowhar oo ahaa in uu fashilmay imtixaankii ay u fadhiisteen ardayda Puntland qoraalka ayaa waxa uu ku sheegay in la siiyay xog qaldan taasoo ahayd in madaxweynaha Puntland uu Garowe ka sheegay in la jabsaday imtixaankii Puntland sidaan uu u sheegay ardaydii Jowhar ee uu khudbeynayay
isagoo aan iska hubin hadalkaasi sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya. warar soo baxay ayaa waxa ay sheegayaan in hadalkani uu yimid daqiiqado kadib markii wada hadal dhinaca telefoonka uu dhaxmaray madaxweynaha Puntland Saciid Dani iyo ra'iisul wasaare Khayre, taasoo looga dalbaday Khayre in uu goodax raali gelin ka bixiyo hadalkii ka soo yeeray ee ahaa in uu fashilmay imtixaanka ay u fadhiisteen ardayda Puntland. in ka badan 15,000 oo arday ayaa sabtigii u fadhiistay imtixaankii fasalada ee ugu dambeeyay ee dugsiyada dhexe iyo sare ee maamulka Puntland, waxaana baraha bulshada uu buuq ka dhaxdhaliyay hadalkii ka soo yeeray wasiirka wasaaradda waxbarashada Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre oo ahaa in uu fashilmay imtixaankii Puntland. golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan looga hadlayay arrimaha doorashooyinka 2020 ku yeeshay magaalada Muqdisho. ajendaha kulanka ayaa ahaa dhageysiga warbixinta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, waxaana kulanka shir gudoominaya gudoomiyaha aqalka sare Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi. golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa warbixin ka dhageystay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo ay hogaaminaysay gudoomiyaha guddiga Marwo Xaliime Ismaaciil Ibraahim. guddiga ayaa golaha aqalka sare uga warbixiyay heerka ay marayaan howlaha guddiga ee u diyaar garowga doorashooyinka 2020 iyo waxyaabaha u baahan in madaxda qaranka ee heer federaal xildhibaanada si dalka uga dhacdo doorasho qof iyo cod ah sanadka 2020. intaa kadib xubnaha golaha ayaa su'aalo ka weydiiyay guddiga warbixin ay jeediyeen, iyadoo intaa kadib uu guddigu ka jawaabay su'aalo la weydiiyay. senatarada aqalka sare ayaa su'aalo ka weydiiyay guddiga warbixin ay jeediyeen, waxaana Xaliime Yare ay beenisay in sharciga doorashooyinka ee hor yaalla baarlamaanka ay soo diyaariyeen guddiga, waxayna ku adkaysatay inaysan awood u lahayn diyaarinta sharci cusub. Xaliime Yare waxa ay sheegtay in sharciga doorashooyinka ay dhawaan meel mariyeen golaha wasiirada ay soo diyaarisay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya, balse iyaga sharcigaas la tashi kaliya lagala sameeyay. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Xaliime Yare ayaa sheegtay inaysan jiri doonin doorashada soo socota xildhibaan ay beeshiisa soo dooran doonto, laakiin xildhibaan waliba ay soo dooran doonaan dadka Soomaaliyeed oo dhan, waana inuu ka diiwaan gashan yahay xildhibaanka la soo dooranaya ayaa ay tiri gudoomiyaha Xaliime Yare xisbi siyaasadeed ee dalka ka jira. haddii uusan ku jirin xisbi ay dhici doonto inuusan u tartamin xilka xildhibaannimo. wararka dibadda, wararka TV saaka idin hayna waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shuruud ku xiray in haweenka ay ilmaha iska soo ridaan. madaxweynaha Mareykanka ayaa markii ugu horeysay ka hadlay sharci gobollo badan oo Mareykanka laga meelmariyay oo mamnuucaya in haweenka ay iska soo ridaan ilmaha ka hor inta aysan dhalin. Donald Trump ayaa si weyn u taageeray xeerkaasi, kaasi oo xiisad meel sarreysa gaartay ka dhaliyay qaybo ka mid ah gudaha waddanka Mareykanka. Mr. Trump ayaa sheegay in dumarka ay ilmaha iska soo ridi karaan marka ay wajahaan 3 xaaladood oo kala ah kufsi, carruur ku timid xiriir saaxiibtinimo iyo xaalad halis ah oo hooyadu ay wajahdo. lama oga waxa mowqifka Trump uu ka bedeli doono xasarada sii xoogaysanaysa ee ka dhalatay mamnuucista xeerkaas oo gobollo badan oo ku yaalla Mareykanka laga dhaqangeliyay. isu soo bax lagu taageeraya hindisahaasi ayaa la filayaa inuu qabsoomo xilli dadka taageersan ay rajo ka qabaan in maxkamadda ugu sarreysa Mareykanka ay ayidi doonto sharcigaasi. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen wararka TV saaka waa naga inta.